madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa shaaca ka qaaday inuu raadin doono dad si mutadawacnimo ah loogu tijaabiyo talaalka fayraska COVID-19 ee uu soo saaray Ruushku. Dalka Ruushka waa dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu helay talaalka cudurka COVID-19 ama coronavirus. Hase haatee talaalkan waxaa shaki geliyay khubarada caafimaadka ama saynisyahanada kuwaas oo su'aal geliyay baahida loo qabo tijaabooyinka. Dowladda Venezuela ayaa bilaayin dollar oo deyn ah ka heshay Ruushka waxayna sheegtay inay ka qayb qaadan doonto tijaabooyinka caafimaad ee talaalkan cusub ee uu soo saaray dalka Ruushku. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. Isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha.